madaxweynuhu wuxuu qaahiro u yimid inuu uga qayb galo shir madaxeed kooban oo looga hadlayo arinta Suudan. shirkaas waxaa isugu imaanaya dalalka dariska la ah Suudan sida dalalka IGAD oo Soomaaliya xubinta ka tahay iyo Masar iyo Chad. waxaa Masar ayaa martigelinaysa maxaa yeelay madaxweynaha Masar waa ka sokow inuu yahay daris Suudan Masar tahay. waa sanadkan Masar waa guddoonka maaragtay Afrika. waxaa kaloo ka soo qayb galaya madaxweynihii hore ee guddoonka Afrika Masar bedeshay oo ah madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha South Africa oo ah gudoomiyaha AU-da sanadka soo socota ka dambeyn doona madaxweyne Sisi. marka intaasoo madaxweyne ayaa isugu imaanaya iyo dad kaleeto oo dalalkaas IGAD ka socda sida wadanka Djibouti ayadana waxaa ka imaanaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. wadamada Uganda, Kenya, South Sudan iyagana waxay soo dirsanayaan Ethiopia wufuud. marka waa shir muhiim ah oo lagu fiirinayo xaaladda Sudan looga tashanayo. inta uusan shirku u yimid halkan uusan dhicin ayaa madaxweynaha Masaaridu uu doonaya inuu la kulmo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ka bacdina wuxuu madaxweynuhu ka qayb galayaa shirkii hadda aan sheegay madaxda dalalka dariska ah iyo madaxda Afrika qaarkood ay isugu imaanayaan oo Suudan arrimaheeda diiradda lagu saaray.